dowladda Iran 20kii sano ee ugu dambeeyay waxa la isdhihi karaa waxay dhistay nidaam ciidan oo aad u adag in la burburiyo yacni Iran way aragnimadadan waxay ka dhaxashay ayaa la isdhihi karaa duulaankii Mareykanku uu ku qaaday dalka Iraq yacni Mareykanku markii uu ku duulay Iraq wuxuu inta badan u beegsanayay saraakiisha taliyayaasha ciidamada iyo waliba horjoogayaasha ciidamada ayuu si gaar ah u beegsanayay taasoo sababtay in ciidamada Iraq ay tafaraaruq baahsan ay ka dhacdo kulligoodna ay kala firxadaan taasoo ay adkaatayba in ay yeeshaan meel laga hogaamiyo dhammaan ciidamada Iraq ee ku sugan ama Mareykanku uu birtilmaameysanayay taliyaashooda arrintan oo sababtay in Iraq loogu guuleysto dagaalka Mareykankana uu ku guuleysto duulaanka uu ku qaaday Iraq taasoo sababtay in Mareykanka gabi ahaanba uu qabsado dalkaas Iraq una rido nidaamka ama xukunka ka jiray isaga gudaha dalkaas Iraq Iran ayadoo arrinkan way aragnimo ka dhaxlaysa ay waxa ay sameysay nidaam ciidan oo aad u adag yacni nidaamka ciidan ee Iran hadda ka jira waxa uu yahay guuto walba ama qayb walba oo ciidamada Iran kamid ah waxay leeyihiin taliyaal aad u far badan yacni taliyaal isdhaxlaya ay leeyihiin mid kamid ah diila dilan kan kale ayaa xukunka la wareegay kaas diila dilan ku kale ayaa la sii wareegay yacni aad ay u adag tahay in la burburiyo nidaamka ciidan ee Iran ay leedahay yacni guutooyin aad u far badan ay u qaybsan yihiin ilaa iyo gobolada dalka ay ku sii fidsan yihiin oo ciidamada Iran la kabi aad u adagna ay ka kooban yihiin taasoo sahashay in ciidamada Iran isku duubnaadaan in adkaato in Iran la dhaqaajiyo ama balarido nidaamka xukun ee Iran waqti xadirkan ka jiro sidoo aragtaa nidaamka ciidan ee dalka Iran ka jiro aragtada qaybta commentiga nula wadaag muuqaalkan la grey page kan soo galgray si aad u heshaan macluumaad xiiso badan oo dunida ku saabsan aad iyo aad u mahadsantihiin